taageerihiisa khaldan oo qabiil saaraya marka waa yahay hadayna qabiil ku tiirsanayn fanaan kasta wuxuu leeyahay taageero bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan taageerayaashiisu sababta ay qabiil u saarayaan maxay tahay hadda fiiri anigu dadni sheekhaala ma yihi dayaxna qabiil kuma taageerayo waxaan ku taageerayaa fanaan Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed magac ku dhaxlay iyo mansab la wada jecel yahay dadku ay jecel yihiin ay wataan weeyaan taadigeed fanaanka kale qabiil ahaan kuma nacbi shakhsi ahaanna fanaanka kale uma nacbi waa aragti shakhsiyeed baan ku taageerayaa taageeraha marka fanaaniinta kale sababta ay qabiil u saarayaan maxay tahay hadayna fanaaniinta qabiil ku taageersanayn sababta ana ku sheegay anana ka jaahil bixinay midiyada sida waa maxay reasonku sida reasonku waxay tahay dayaxdal nurshanin horta nin dayaxdal nursha ma la yiraahdaa ninka dayaxdal nursha ah qabiil walba hees buu u qaadaa hees buu ku soo amaanaa ninka qadarkeeyo qaran ma ahane asoo hees qabiil ku amaanay ma keeni kartaa adma horta fiiri aduma keeni kartaa ani su'aalaha ku weydiiyay iga gaban su'aasha may ama ha iga jawaab ma ka wada mugta adiga ku siiyay maya soo dhamaysa si aan kugu jawaabo marka dhamayso pointkaaga oo dhan la isku ururso kamiyo saaxib sida wal horta waxaan u baahanahay dayaxdal nursha fanaan qabiil walba hees buu u qaaday hees buu ku soo amaanay qadarkeeyo iyo marwaan yare hal hees oo qabiil ku amaaneen ma jiro mana dhici doonto intee nool yihiin marwaan yare waa jirtaa wada gabo gacal iyo xigal shabeelle waa state bal nin MJ iyo Mareexaan iyo Duduble iyo Murusade iyo Shiikhaal iyo Abgal soo heesay keen oo fanaan Abgala okay waa faanaye ka socon abo ma jiro no way uu ku soo qaado ma jirto sababtoo ah fanaanku markaas qaran la dhigi karaa fanaan qaran markaas loogu yeeri karaa ninkii waa kana Ismaaciil Arka waa ninka ugu horeeyay hees qaran soo qaado markuu heesta qaraxa uu qaadaye 14 October dayaxdal nursha ku jiray fanaan qaran waa leeyahay xaquu fanaan qaran ku noqday waa laga heesa badan yahay waa laga codweyn yahay waa laga music fiican yahay wax ay ku gaaraan malahan dayaxna wuxuu dadka ku gaado waxay tahay fanaan heesa qabiil MJ iyo Mareexaan iyo Abgaal iyo Habargidir iyo taaka bitaaqo ugu soo qaadaa qulubta dadka waxay jecel yihiin uu fahmay wuxuu gartay waxay tahay dadka waxay jecel yihiin in la amaano qabiiladooda la amaano shakhsiga bini aadanka maanta oo Soomaaliga naftiisa in la amaano wuxuu ka jecel yahay qabiilkiisa in la amaano waa sababta aroosyada maalin kasta heesa oo qabiil loo qaado waa lis aroosya laba qof ay aroosayso hees qabiil loo qaadaya sababtaas weey sababtuu fahmay uu u gartay inay Soomaali uu leeyahay Soomaali ma ahan dadka asiga kala fogeenooyo dadka isaga isku dirayo sababtu uu hees qabiil u soo qaadayo isagoo fanaan Soomaaliyeed waa maxay sababtu u keenayo filmaantaas waa maxay isaga bilaabay isagaana abtiyaashiisa isku diray isagaana waxaan oo dhan ka masuula de wuxuu mariisu leeyahay wuxuu gurtuu leeyahay yabo waxa iga jawaabtaa marka fanaaniinta kale waxa leedahay maxaa loo taageeri lahayd hees qabiil soo ma qaadin guys hees qabiil meesha soo qaadin عمر علوق هدو جو جايز كنت ياسم دتك دبل مركا رنت ياسم نمعان هذا الكي قصو عمر عمر علوق جايز دتك من ريترك هاي عمر علوق يسو قبت هدو جو واكنا واي هاي هذا الشكل أتكاتي مركا أتكاتي واي هورتا هذا باشا هورتا سي وناكسن بو دغ نينكاسي wuxuu yiri ninkan odayga waxay ku dayaxdal nursha waxay ku taageeraan Soomaalidu qabayladu u heesaa taageerahana halkaas u ka haystaa ninka kalena qabayl uma heeso oo sidaas u bila taageero ku yahay waa su'aasha koobaad oo cudurdaarka ugu sameeyay inaadeer waxay ahayd marka laba inaad kala leexiso anigu waxaan ku sheegay fanaaniintaasi fanaaniin Soomaaliyeed inay ahayn inay wada yihiin dhamaan waa fanaaniin Soomaaliyeed hasa ahaatee adigu laba waa inaad kala leexisaa annagoo reer hebel hadda fanaankaas adu waxa leedahay annagoo reer hebel wadna macnaha qabiil ahaan baa ku wadataa adiga way isburinaya ninkii qabiil baa ku wadataa kan kalena waa riixaysaa waxa leedahay qabiilu u heesayna waa ku riixaysaa kan qabiil baa ku wadataa marka doodada iyada isjibinaysa inta wayna fahantaa bointii kale wuxuu yahay fanaanku wuxuu fanaan u yahay waa Soomaali qabiilku Soomaaliyadan ay ka dhigaysadee cidda dooran aan ku dhamay wadax madax banaanta cidda taageerayso aniga hadda kula hadlay dayax baan taageersanahay taadigeed aarka ma nacbi reerkiisana ma nacbi asxaabaan ku leeyahay isaga ma nacbi horta bointiga wayna fahantaa inaadeer waayahay macaan topic dheereen soo gaabiyo wixii ma taqaan si xamaasad u yeelato okay bointiga aan ku soo gabagabeynay waxay tahay
dayax lama oran karo hadduu qabaayil u heeso qabaayilku waa litacaaruf weeye hadduu qabaayil u heeso macnaheedu maaha in sidaas lagu taageerayo bulshada Soomaaliyeed baa dayax jecel kana qabiil ahaan looma nacbo abgaal waa qabiil Soomaaliyeed weeye cid qabiil nici kartayna ma jirto aanu saasana aaminsanahay marka nin qabiil uu wada weeyaan dhalinyarada taageeraysa iyaga qabiil saaraya nimanka kale ma soo celiyay عمر على قصده ورامكم مقلنا ملا مقلا قالوا مقلا هذا دمانتي نسيو دجرا إلي سلامي قفل من فكرة دي ضوء بنان تهي نانتي نقاس آن باشا دهرات هورت كل وحي تاقيرو يان نيك ضيح هاي ضيحنا وحا كو تاقيريسان كنت الربا وإذن هيسا قبيل وكو هيسا وما هيسو سعادي ودنما هذا نكان جبرة وحا أديو كسود ويمركا مقدش جوكتي للأبقارة قاس أهان بيش هذا الدارود ويكو تاقيرين وحيناين أبقال ودادك تسود ويو قاس أهان بلال باقي البور كاسود وفي أساكو سود وي وكو شرفي هذا أنا حكا الشكرا دي الله نعم تقنا من هذا كتا صح أوكي دادك لو جوابها وحا ماشي كفانيسي إنه نن أبقال كسود وي نن أبقال كسود وفي مقام كسيو كفانيسي عليه شرعي waxa hadda ku taageeraysanana waa nin idin baraamburayo hees idin soo qaado baraambura dhamaan runta la raamugta fanaaniinta abgaal ma aha fanaanin ku heeso oo u heeso qabiilo hatta anaga inaan noo heesan qabiil marna waa qaran saasay hadda meesha nimbu u gafayay waa dhameesanaya waa ii jawaabi caayinda baraambura waxa dhihi hadii kale adiga fanaaniinta ay waa laga qabtay jabrow marka dayax lahaynay waa faa'iido waa ay laakiin waa خبركي أبو في العبان كحرية نيوبي دحيا وكحرية يا فنان الحين عمر هدايا نيكا صوتي أنا غيرت كلا أنا ضيحكم ما حد قبل ذكرت هاي دقة أيوة هاي كبح واي هاي يا فنان قرنا نين قبيلة أوهيسو نين قرن أوهيس يا فنان قرنا مدة كلام كويديا أنا وحيت هاي ورمدة ماشية تعال فيريا وها إلا هاي نين كان قبيلة كتاجيري سين kuma taageeraysan haday Soomaali oo dhan wanoohiisi hal nin ku taageerayaan maxay ii diiday aniga ninkayga inaan Soomaali oo dhan aniga geeska soo jeesto kaliya abgaalnimo taagno maanta ay taagan tahay Soomaali abgaal ay taagan tahay ee haddana markii la isku fiiriyay public la istaagana abgaal ku bisay oo muuqdo Soomaalida ay dhunto waxa keenay in Soomaali abgaal ka badan tahay taasa keentay markii qofka markuu shaarkiisa cad yahay diciyaal garaaw wadan waa ka daba cararta marka maxaa diiday ina funaanina idinka leedin aad dhisataan oo istaajisataan maxaa keenay maxaa idin keenay qof caar difaacdo qaarf ilaahay ku madarnaaday oo dhahdo waa noo heesi maxaa keenay ma ku ina dhisataan maxaa idin dhaxgelin waxa idin dhaxgelin meesha waxa la taagantiin waa abgaal baa ninka u wada heli abgaal waa u wada heli kariyaa maxaa keenay dadkan baa ku abuuray Soomaali oo dhan inta wiilashiina xaq ka istaagtay wixii taagan tahay dayaxa noo heysay dayaxa uu gabar naga guursaday dayaxa noo yeelay waxa aqli maahan qofal waxa leeyahay halkaad ku taagan tahay qofka abgaal waxa aaminsanahay halka qof inuu ku qofod u dhigmo sida aniga aaminsanahay waa marka daarodow qaas ahaan idinku funaanad ku faantaan ma qabtaan miya oo dadka la tartami kara dhigi kartiin caasimada xataa ma nagala xilo dadka caasimada ma nagala xigo caasimaddiini ma qabtaan miya inaa ku faani kartaan dhigi kartaan boqorka caasimada waa kaasa maxaa ciyaal garaawayda ka daba dhigo dadku doo socota waa qaldantahay Umar Caluuq hadda mar daba caaydo bis inaad anaada dhex bilaabanaysaa maxaa la xanaaqay maanta naqaylisir oo abgaal badalisir no waa qaldantahay dulqaad muujiya inaad fiiri aniga meesha ku sheegaysan hawina inaad fiiri ana dayaxna ma nicbi qadarkeeyna ma nicbi Ismaaciil aakana ma nicbi qolkan qol dhaxwa anana iska magaciiga Jabra Allah waa loo jawaabaya ma dhaafinaado Jabrow muxsina ay hadli karo cib ma وايا محسن سيد هذا كأمس هذا مستو مركا وحا إذا ليهي فنانا إذنك ديار ستان وكو هذا الشان ومجعين وطخ موضان ميها معنا عدنا لفضة ضدك قال بيسمه أسلاحيسن أبو هوية يجري هبلا يجري ما قبتان ميها فنانا إنك أمارتان تين الدار يشتا مدى إذا كريتان وحاليدين وحاليدين ما تقدر دليسين بقرك عاصمة وضيح والعاصمة وحاك هادلي كرنينكو كنول
caasimadda waxaa ka hadli kara ninka maalgeliyey caasimadda waxaa sharaxi karo ninka ku noolaa xaaladeeda u sharaxi karo nin garowe iyo duurkaas joogo muxuu caasimadda ka hadlaa muxuu ugu sheegaa waa siraysin been baa u sheegaysin xafladiisa ma imaanaysin waa ka maqan tihiin ma joogtiin meesha tuulo ma ahane waa caasimade maxaa been ugu sheegaysin war cunuga dadka ha ku dirina oo abgaal ha ku dirina dadkan ha ku dirina dad la-aan ha dhigina taa baa idin sheegaya yani kula socda وايا محسن وقال هذا القف كل هذا الكلام مجرو بسم الله الرحمن الرحيم قد كان يقول بابور بن سليمان مقلو جبرو والله مقلا حدو كاغو غاي اركسنا بسم الله الرحمن الرحيم ما وجيده دمر waa maqlay بسم الله الرحمن الرحيم hortanimay waxaanu ka doodayno waa fanaan qaran weey waxaanu aragnaa dhalinyaro yar yar oo qabiil nin ku difaacaysa bila talentiya waxaad ka sheekaysan qabiil u heesaa qabiilada xuna qabiilku ma xumo waa la taarafo idinku hadda abaal leedihiin abgaal buu soo heesay maxad uga fiqilaadiin miina qabiil ahayn mise qabiilada daarood bas qabiil u taqaanaan idinku qabiil ma tiidin idinka buu idin amaana uu idinka qurxiyay farxad buu idin abuuree maxaad ugu dhagantiin annaga haddaan leedin waxaad ku taageeraysaan heesuu idin qaaday abgaal buu waa qabiil annaga nala siman weeye laftirkooda waa loo heesay bilaadamirba maxay ninka ugu dhagan yihiin midda labaad ilmaadareyaalow haddaad awood leedihiin oo magaalada muqdisho awood ku leedihiin annagu ma rabna hadda qabiil Soomaaliyeed inaan u gafno waxba kuma dhex jiraan dooda meesha taala abgal inaan nacayb u qabno maahan facts reality baanu falanqeynaynaa su'aalaha uu ninkan weydiinay way isburinayaan wuxuu ku leeyahay idinku maxaa tihiin daaroodo war annagu markii Marwaan loo diiday inuu soo qabsado nageeya ka afuufa xaaday ka caday ma ka afuufa ma ka canduufa yaa u taqaana soo annaga maahan iskalaaj hargeysu joogo waa loo tumayay yaa u taqaana soo annaga maahan buuqa dhalinyarada magaalada dhexdeeda ah oo buuqa sameeya ah ama kicin bulsho sameynaayo bilaaloo duubkaas xirin jirtay waa dhexgeli jirtay maxaa dhacayo maxaa hadda ku qaaday barnaamij horta noocaas uu ahaa bilaalna wuxuu ahaa kolba saan dareemay hal mar itaabo aan qarxe marka isagana aad waa u qarxay waan u hadlay ana su'aal kale aan weydiiyay wiil yar hadda bir laqlaay magaalada imaaday biskoolad la wareegay mootooyinkan istaagayo magac qabiil la soo qaadayo bilaalo maxaa ka leedahay wuxuu yiri taas aniga ima taal mas'uuliyiin u taala waaya magac ciyaar xamarna waa wataa madaxweynena waan ahay gabdhaha markay isku dhacaan waa dhixgalaya ragana ma dhixgali karo ma qurux badno barnaamijkii waa kan dayax markuu soo hadal qaadana wiil iyo abtigiis ani ma dhixgali karo dhamaantood waa saaxiibaday anshaxa halkan u fadhiyo u jawaabayay aad baa u maasantiin halkaas ugu bax mowduuc in la wada fahmaan roon وما حصلتها محسن وهذا جوكتو كسو دو غبغبدي برنامج نو سو خير waxaa abgal cid kale jawaab isma joogto waa tamiimna waa kan waa dhiqaysanaya anshaxna waa dhiqaysanaya waxa meesha dhiqay noqotay dadka soo qoraya buul tour waaya dadka soo qoraya buul tour aniga buul ma tuurayo qolkeyga waa dhax waa lagu wada hadlayaa laakiin cidna labada dhinac inaa mid guush siiyo ay halka guul ku qaadato aniga diyaar u mihi labadaba dhaxa waa aniga dayaxna waa saaxiibkay ragan kalena ma taqaan waa jabro hal su'aal baan qabaa shacabka Soomaaliyeed ee raga meesha saaran baan weydiin lahaa hal su'aal baan qabaa anigu su'aashaan qaba waxay tahay fanaaniintu dhamaan waa fanaaniin Soomaaliyeed sidoodaba ninka fanaanka wuxuu u yahay fanaan waa shacabka Soomaaliyeed fanaan qabiil u noqon kara fanaan ma jiro niyo su'aashaan qaba waxay tahay fanaan aan wax qabiila ku tiirsaneyn oo bulshada Soomaaliyeed ku tiirsan oo isagu wax qabiil aan ka hadlaynin iyo maxaa la isburbar dhigayaa fanaan la leeyahay fanaaniin la leeyahay reer hebel weeyaan fanaaniinteedu annaguna reer hebel baanu nahay arrintaasi ma la isburbar dhigi karaa ilaa fanaanku wuxuu fanaan u noqdaa waa shacabka Soomaaliyeed buu fanaan u noqdaa waa shanta Soomaali ka kooban oo qabiil fanaan uma noqdo qabiilku waa li taarifu qof walba qabiil buu ka soo jeedaa ninaan qabiil ka soo jeedin inteena halka saarana ma jiro fanaan Soomaaliyeed oo qabiil ka soo jeedin ma jiro su'aashan qaba waxay tahay fanaan qabiil reer hebel weeyaan anaguna reer hebel baan nahay la leeyahay iyo fanaan Soomaalidii uu qabiilka u hayo wadato maxaa la isku burdhigayaa waa maxay reason intaas u dulmay ma haba hay okay aan kaaga jawaabo sida jabro waxaa tiri dayax waxaa tiri waa fanaan Soomaaliyeed oo qabiil kuma tirsan hatta wiilasha kale oo fanaaniin Soomaaliyeed kaaga jawaab marka wiilasha kale fanaaniin Soomaaliyeed okay qadarkeeyo ma ku tirsan yahay ma taqaana reer ma kuma tirsan qadar dayaxna ma niyo dayax ma taqaana kuma tirsan reer aarkana kuma tirsan reer laakiin wixii dadka ma taqaana si khaldan ma taqaana u kala fahmaayo
taageerihiisa khaldan oo qabiil saaraya markaa waa yahay haddayna qabiilo ku tiirsanayn fanaan kasta wuxuu leeyahay taageero bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan taageerayaashiisu sababta ay qabiil u saarayaan maxay tahay hadda fiiri anigu dani sheekhaala ma yihi dayaxna qabiil kuma taageerayo waxaan ku taageerayaa fanaan Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed magac ku dhaxla iyo mansab la wada jecel yahay dadku ay jecel yihiin ay wataan weeyaan taadigeed fanaanka kale qabiil ahaan kuma nacbi shakhsi ahaanna fanaanka kale uma nacbi waa aragti shakhsiyeed baan ku taageerayaa taageeraha marka fanaaniinta kale sababta ay qabiil u saarayaan maxay tahay haddayna fanaaniinta qabiil ku taageersanayn sababta anaa kuu sheegay anaan ka jaahil bixinaay midiyada sida waa maxay reasonku ha sida reasonku waxay tahay dayaxdal nurshe nin horta nin dayaxdal nurshe ma la yiraahdaa ninka dayaxdal nurshe ah qabiil walba hees buu u qaadaa hees buuna ku soo amaanaa ninka qadarkeeyo ah qaran ma ahane asoo hees qabiil ku amaanay ma ii keeni kartaa horta fiiri adu ma ii keeni kartaa ani su'aalaan ku weydiiyaa iga gaban su'aasha may ama ha iga jawaab meeqa ana wata mugta adiga ku siiyay maya soo dhamaysa si aan kuugu jawaabo marka dhamayso pointkaaga pointyadaada oo dhan la isku ururso tamiim saaxib sida wal horta waxaan u baahanahay dayaxdal nurshe fanaan qabiil walba hees buu u qaaday hees buuna ku soo amaanay qadarkeeyo iyo marwaan yare hal hees oo qabiil ku amaaneen ma jiro mana dhici doonto intee nool yihiin marwaan yare waa jirtaa wada gabo gacal iyo xigaal shabeelle waa state bal nin MJ iyo mareexaan iyo duduble iyo murusade iyo shiiqaal iyo abgaal soo heesay keen oo fanaan abgaala okay waa faanaye ka socon abo ma jiro no way uu ku soo qaado ma jirto sababtoo ah fanaanku markaas qaran la dhihi karaa fanaan qaran markaas loogu yeeri karaa